يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا. daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah. صحب بقربهم السعادة والنجاة. amaanada markaad ilaalisay, xaaraanta markaad iska ilaalisay, ayuu ilaahay muxuu kugu abaalguday inuu ku siiyo aniga iyo guriga iyo wixii aad ka tagtayba oo xalaal ah inuu ku siiyo. بقربهم السعادة والنجاة. faatimada aan ka sheekaynaya ee axmed cabditawaab u dhalay waa aniga maanta idin hortaagan, macallimada idin ah. sidaa daraaddeed waxaan idin sheegayaa bay ku tiri khayr haddaad samayso waad helaysaa. بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه. adigu aabbahasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma caruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan. دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كسهن هو برنامج كان قصوين كان الله وعن كسو قاثنا قصوين دعي وينو بهانا هاي سينكو عبر قاثنا قصدا ما تداود وحا كسحب سنتا إن يرى عرورة أي أبيه مركو قريقا صاقري كوير آبو إنا كلاه لان ربا odaygii baa yidhi maxaad rabtaa dee waqti kuma hayee aabada in yaraan kula hadlo oo inaan wax ku weydiiyaan rabaaye maxaad weydiinaysaad iga rabtaa buu odaygu ugu jawaabay inanka yaraa markii dambe yidhi aabba su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. odaygii aabba ahaabaa wuxuu ugu jawaabay bal weydii, hadalkaagu waa badan yahay, su-aashii weydii. kii yaraabaa wuxuu yidhi aabbo saacaddu imise adiga kugu joogtaa? aabbihi waa nin aada u mashquulo, waa nin dhaqaalaha ka shaqeeyo ganacsada ah. marka inankii yaraba ku yidhi aabbo saacadda markaad eegto, wakhtigaaga markaad eegto, saacaddu maxay kugu qiimaysan tahay? saacaddiiba imise lacagaad heshaa? wuxuu yidhi saacaddii waxaan helaa markaan qiimeeyo konton baan helaa. lacag konton ah ayay saacaddu ugu qiimaysan tahayoo sidaasuu waqtigooga aniga qiimo u leeyahayoo saacaddii intaasaan hela. kii yaraaba waxaa dhacay, wuxuu ku yidhi aabbo waxaan ku weydiistay 25 inaad siiso lacaga. odaygii baa xanaaqay oo ku yar kii yaraa, war haddaad lacag i weydiisanayso ma markii hore i weydiisatid? maxaad markii hore waqtiga iga dayacsad ilahayd? saacaddii maxay kugu joogtaa aadii lahayd? orodayga tag, waxba ku siin maaye. kii yaraaba caadhoday qolkiisuu tegay. kii yara qolka markuu tegay odaygana gurigiiska galay. markuu is yidhi odaygii soo bax oo dibadda u bax ayuu is yidhi kaagii yaraa bal fiiri waa kii cadhaysanaay, bal isna eeg muxuu rabaa. kii yaraaba qolka ugu tegay. maxaad rabtaa buu ku yidhi. wuxuu yidhi aabba dee 25 baan kaa rabaa. 25kii ayuu odaygu u soo saaray kii yaraa. waa kuwana hoobi yidhi. markuu u soo saaray ayaa kii yaraaba 25kii markuu qaatay ayuu shandadiisii yaraad furayoo wuxuu ka soo saaray 25 kale ayuu ka soo saaray. 50 bay isku noqotay. odaygii baa ku yidhi oo haddaad lacag haysato maxaa lacag ii weydiisanaysa? kii yaraaba wuxuu yidhi 50kii intuu sidaa isugu geeyey buu yidhi aabbaho 50kan waxaan kaa dalbanayaa saacad ka mida waqtigaaga inaad i siiso, maadaama hore aad ii sheegtay in saacaddu kugu joogto 50 lacag ah. dee 50kii wanigaa ku siiyey. waxaan kaa dalbanayaa aabbo inaad siiso saacad waqtigaa ka mida oo in wada fadhiisanno oo wada sheekaysano oo wax ku weydiiyo ayaan rabaa. markaas taamkaagii baan kaa iibsanayaa. odayga halkaa markay marso aad buu naxay. sababta wuxuu ogaaday xaqiiqada meesha taalloo ogaaday oo waa maxay? inankiisii yaraa wuu ka mashquulay, waqti muu siinin, howlo ganacsi buu ku mashquulay, habeen dharaar uu ku maqan yahay, lacag buu xisaabinayaa. kiisii yarana waqtigu u laaya.
kiisii yarana waa kaa la soo gaadhay maadaama aabba waqti aanad siineen dee waqtigii wayna kaa iibsadaa oo saacadda maadaama konton kugu joogto dee kontonkii baan ku siinayaa anigana saacadda sii daawada qisadan waxay tilmaamaysaa xaqiiqada guryaheena taalay tilmaamaysaa guryaheena xaqiiqada taalo odhanaysaa odaguna inuu mashquul yaho shaqo ku mashquul yahay islaanta iyo xaajiyaddana looga tago carruurta looga tago waa mabda inta badan ay rag wada aaminsan yihiin oo ah anigana shaqada adigana carruurta laakiinse mabda'aasi sax ma aha carruurtu waa mas-uuliyad labada qofba wada saaran tarbiyadoodu labada qofba waa u siman yahay marka carruurtaada haddaad ka mashquusho ood waqti aad sii weydo waxaa imanaysaa waqti aad ka murgooto oo aad tiraahdo maxaan waqti u siin waaye maxaan u soo tarbiyadeen waaye maxaan u soo hagaajin waaye ayaa imanaysaa marka intaan waqtigaas aanu iman isku day inaad waqti fiican siiso reerkaaga iyo carruurtaada intaasaan ku soo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا